إلى xog-ogaal ku sugan magaalada Garoowe ayaa Allool TV u xaqiijiyay in xukuumadda Puntland ay dabada ka riixayso MOOSHIN xubinnimada Baarlamanka looga saarayo guddoomiyihii hore ee Golaha Wakiilada Puntland xildhibaan Cabdixakiin Maxamed Axmed dhoobe-DHAAREED mudanayaal ka tirsan Baarlamanka ayaa xaqiijiyay in ay saxiixeen MOOSHIN ay ku qoran yihiin cadeymo ka dhan ah xildhibaan Cabdixakiin Maxamed Axmed dhoobe-DHAAREED isla markaana golaha looga dalbanayo in ay xasanada ka qaadaan mudanahaasi oo kulamadii baarlamaanka aan soo xaadirin tan iyo markii 7 November ee sanadkan xilka looga qaaday MOOSHIN ay soo abaabushay madaxtooyada Puntland wararku waxa ay sheegayaan in xukuumaddu diyaarisay kooram ku filan si ay xubinnimada baarlamaanka uga saaraan xildhibaan Cabdixakiin Maxamed Axmed dhoobe-DHAAREED kadib markii ay mudanayaasha ku qancisay in xildhibaankaasi ku hawlan yahay dhismaha dawlad goboleed cusub oo ka madax-bannaan Puntland mudane dhoobe-DHAAREED oo haatan ku sugan magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya ayaa maalmahan halkaasi ka waday dhaqdhaqaaq la xiriira in maamul goboleed Puntland iyo Somaliland ka madax-bannaan loo sameeyo gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn waxaana la sheegayaa in uu Addis Ababa kula kulmay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo jaaliyadda gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ee ku dhaqan waddanka Itoobiya.